maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray xasarad ka dhalatay tagitaankii muxuu ahaa diyaaradii laga joojiyay ama wasaaradda dawladda ay joojisay Sheekh Shariif iyo raggii la midka ahaa groupka hadda xukuumadda hayo marka inuu tusaale u soo qaadano ninka la yiraahdo muxuu ahaa Farmaajo wuxuu asliyan ka soo jeedaa Jubbaland waa constituency uu ka yimid haddii iyadu wax u qaban waayo Soomaali kale wax uma qaban karo marka in la yiraahdo diyaaradii ma tagi karo wax kuma yeelan karo waxaan u aragnaa inay tahay meel ka dhac sidoo kale wasiirka hawada ayaa iyaduna loo diiday oo isna deegaanada ka soo jeeda inuu tago marka yaa loo ogol yahay weeye haddii la yiraahdo wadamo kale iyo dadyo kale iyo ajnabi kale loo yeerayaa iyo dadka gobolka kale ka yimid kuwii deegaan ahaan ka soo jeedina waa loo diidayaa taa macnaheedu in ay gurxan tahay oo ay sax ahayn nin walba uu fahmaya qayra intuuna halkaan imaan leerarka ku jira magaalada Kismaayo solarka ku shaqeeya ninkii geeyay mashruuca weeye ninkii ceelasha biyaha Dhobley 22 ceel ku jira dhowr iyo 10 kamid ah biyaha galiyay weeye ninka waxa weeye inta muxuu ahay barakacayaal ah ama muxuu ahay qaxooto ee Kismaayo ku nool lacagtii siinayay mashaariicda u sameeyay ee guryaha u dhisan weeye Sheekh Shariif Xasan Sheekh maxay u tareen Sheekh Shariif 2006 xilligii maxaakiimtu hogaaminayay intuu qori qaato kitaab qaato yirwan jihaadaya jihaadkii wuxuu la aaday Jubbaland kumanaan wiilba ku dhimatay waa loo yahay kumanaal xoolaha ku baabay qasaare qaxay dhibaato ka dhalatay ugu dambeyn xataa waxa naga qaxay ugaartii ku sii hartay bandamadow iyo duurka ee Soomaaliya ku hartay xuduudkay gudubtay dhibaatadii meesha ka dhacday weerarkii diyaaradihii iyo muxuu ahay xasuuqii meesha ka dhacay ciidamada galay xabadii markii dambe habeen madow intuu diyaarad raacay Mareykanka ka tagay Sheekh Shariif maanta markuu tago oo rag isdiidan oo deegaanka wada dhashay oo meesha isku diidan uu qolo kamid ah uu taageero soo macnaheedu ma aha in mar labaad uu dagaalkii iyo dhibaatadii uu dhiigii u daadiyo waanu ka xunnahay waanu ku ixtiraameynaa laakiin fikirka uu wada Sheekh Shariif waxa weeyaan ma aha taariikh madowguna gobolka kale yahay waxaanu weydiisanaynaa in uu arrimaha nooca ka tanaasulo waan ku ixtiraameynaa inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yahay laakiin waa in taariikhda dib loo aqriyaa waxa kale oo ognahay Sheekh Shariif badda maanta markuu ku jira isagu ahaa mas'uuliyadeeda ninkii saxiixay ee ninkii heshiiska la galay ee dawladda aan dariskanahay Kenya waxa Cabdishakuur iyo aadan Umar Cabdirashiid wadankii isaga madaxweyne ka ahaa dhibaatadan maanta taagan khilaafkan isaga aabo ahaa isaga ogolaaday waxba kama ogi waxba kama yeelay waxba cid ka yeelaysa ma laha isaga mas'uulka ahaa maantana mar saddexaad inuu geeyo cidna ka yeeli mayso ummadda Soomaaliyeed ha ogaadaan reer Jubbaland ha ogaadaan arinta ayada waa sida Xasan Sheekh xilligii madaxda ka ah daatinkiis la yagleelay Jubbaland waanu ogeyn 70 qof dagaal ba halka ka abaabulay ciidamo diray saraakiil buu dilay wasiir uu diray dagaal ba ka dhacay meesha isagoo doonaya inuu ka hortago inaan maamul laga sameeyo Jubbaland 70 qof baa ku dhimatay dhowr boqol way ku dhaawacantay intaana way ku barakacday muxuu abaal u geystay wuxuu abaal u geystay malaha marka maanta haddana mar labaad inuu geeyo mushkilad waanu ka xunnahay waxaanu leenahay bifadlakum haddaadan dadka wax u tareenin dhibaatada ha laga daaya dadkaas ha laga daaya dad Soomaaliyeed dad walaalihiina waa dad runtii muxuu ahay jacayl dad nabadeed weeye dad mushkilad iyo dhibaato maanta tabar wahayamaha waa la soo daalay arinta ayada waxa weeyaan waxaanu doonaynaa inay ummadda Soomaaliyeedna saa ogaato reer Jubbaland saa ogaadaan iyaguna ay walaalaheena saa ogaadaan manihin anagu reer hebel ma dhahayno waxa waa fikir iyagu iyo group isku waxaysan weeye waxa kale halkan raba inaan kaga faa'iideysto Jubbaland waxa ka soo gasho 43 muxuu ahay xildhibaan iyo 8 sanad sagaal bay ahaayeen mid ma aqaan qbel la geeyay waa laga daba tagi doonaa khilaafka hadda jira hal maalin kama arag xildhibaana iyo muxuu ahay siyaasiyiin reer Jubbaland oo u taagan oo arintan inay xaliyaan ka qayb qaata xagee jiraan macnaheedu waxa weeyaan markii hore ahaayeen kuwa qalad ku yimid oo si qaldan lagu keenay meesha ma aha dad istaahilaba marka fiirsaba inay kuraastaas iyo matalaad ku fariistaan ummadda matalaad dad istaahila maaha laana maanta khilaaf ka jira muddo socdaa dawladda federaalka ka tirsanayna ma garab istaagin waxay aadayaan maamul gobolkii iyagoo dhuumanaya Axmedow u tagayaan gadaal fariisanaya ujeedadan waxa weeye Axmedow soo laaban doona bariha idin soo celiyo dawladda ka tirsanayeen ee federaalka la diidaya iyagana way dhuumanayaan maxay marka waxaan u dirsanay
federaalka inayna uga keenaan ahayd aaway hadday qaldan tahay dawladda federaalka Soomaaliya dadkii qaban lahaa oo dhihi lahaa wad qaldan tahay ka jooga annaga deegaanadaas mas'uulka oo nagala soo doortay hadday saxsan tahay dadkii taageeri lahaa Soomaha haddaan annagu siyaasiyiinta qaldannahay dadkii noo yeeri lahaa nagu waxeen lahaa Soomaha iska daaya waxay ka baqayaan iyagoo halkan jooga in ay qof siyaasi ama musharax la fariistaan si ay inu Axmedoobe u maqlin marka dadka nooca Ilaahay baa idin ku dhaarshay ma lagu aamini karaa masiir umadeed waa maya way lagu ma aamini karo